Assalaamu calaykum waa aniga iyo mar kale qadari naftaada akhyaarta qadari naftaada iyo inta ku xiran channelkan aad iyo aad ayaan idin salaamay salaan kadib maanta insha Allah waxaa rabaa inaan ila wadaago hab aad iyo aad u fudud oo loo samaysto bariiska hindida haddana loo yaqaano biryani faraha ayaad iska goosanaysaa aad iyo aad ayuuna u fudud yahay waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen aadna tijaabin doontaan biidnillaah haddaba sidaa u jeedaan saxaabay digsi ayaan halkan ku haystaa digsigii waxaa ku jirto 5 qaando ilaa 6 qaando saliid ah kadib 2 xabo basal waaweyn oo dheer u jarjara ayaad ku daraysaa qaandada ayaa dhex marinay basashaada waa daboolanay basashaas markay sidaas kalarkeedu isku bedesho ama brown ay noqoto dooro nadiif ah 1 kiilo dooro ah oo aad u nadiifsan ayaad ku kartuuraysaa digsiga kadib waxaa ku daray 2 xabo bay leaf caleenta loo yaqaano iyo 2 xabo basbaaska qalalan 1 qaando toon ah waad isku daboolaysaa digsiga 3 daqiiqo kadib waxaad sameynaysaa 1 xabo yaanyo jarjaran ayaad ku dul shubaysaa yaanyadii kadib qaandada mari kadib waxaa ku darsanaysaa 1 koob loo yaqaano caanaha fadhiga yogurt ama zabadi hadba sidaa u taqaano kadib waxaan isticmaalayaa aniga biryaniga spicy-ga loogu tirigalay oo 1 baake ah chicken biryani maadaama uu yahay kan chickenka ku qoran kan doorada ku qoran tahay ayaan soo qaatay halkaas baake kaliya ayaan isticmaalayaa kadib wax kale uma baahnaan doono waxaan kaloo ku dul shubay sacab kabsar ah kadib digsiga daboolo 20 daqiiqo ha ku saarnaado intuu digsigaas ku fuulo biyihii falfalayo bariiska ayaad u imaatay bariiskaada ayaad ku shubanaysaa maadaama 1 kiilo dooro sameynayo waxaan halkan ku haystaa 3 koob oo bariis ah bariiska wax yar oo cusbo ayaad ku daraysaa kadib waxaan u soo laabtay suugadii hadda waxaan rabaa inaan nii tuso dooradii ama digaagtii inay bislaatay maasha Allah sidaas markuu kala dhacdhacaayabo waa ku diyaar alaabtaada dabka ayaad ka daminaysaa bariiskeenii u soo laabo bariiska qaandada mari waad dareemi kartaa marka bariiska markuu sas dheer u noqdo 70% bariiska ha bislaado 30 markay u dhiman tahay ayaad baastamiir ku miiraysaa sidii adigoo miiraya baastada camal kadib bariiskaadii ayaa soo qabsanaysaa digsigii aad biryaniga ku karisay suugadii baaquli ku shub digsigii waxaad ku shubanaysaa half bariiskii aad soo miiratay kadib suugadii ayaad dhaxda uga shubaysaa iyo digaagtii markaad sidaas dhaxda uga shubto waxaad sameynay halfkii kaloo bariiska ku soo haray ayaad ku dul shubaysaa suugadii yareedo baaquliga ku soo hartay ayaad saas ugu dul shubaysaa kadib insha Allah waxaa sameynay kabsar yar ku dhex fardhi digsiga daboolkiisa saar 20 daqiiqo oo dabka aad ugu gaabisay ayaad ku daynaysaa dabka 20 daqiiqo kadib waa kaasa alaabtii saas ayay ku soo baxday biryanigeeni waa noo diyaar in la cuno bas ayuu sugayaa maasha Allah alaabtan ishcala waaye waxaa rajaynayaa inaad ka hesheen aadna tijaabin doontaan hadda like-ta iyo share-ka iyo subscribe-ka dhinaciina waaye